ilmaha aad dhalaysid ay jiraan dad ku raadiya dayaxa oo ilaahay ilmo uuna siinin, ay ka taagan tahay ilaahu hal cunug ma isiisid, adigana sidii dooradii inta u daadisid oo gabar walba guursatid oo ku furtid amase adoo qabtid mid kale ka daba keentid aadan ilmahaadii ka warqabinin. ilaahay maalinta aakhiro wuu ku xisaabi doonaa. ilmahan ha u malaynin ciyaar, waa ammaan. magac hebel intaasoo ilmuu dhalay maxay kuu tartaa haddii ilmahaay kaa halaabaan oo gabdhahaaga meelo xunxun lagu sheego oo wiilashaadii meelo xunxun lagu sheego, waxaa kaaga qeyr badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal kusoo dhawo janalkayga Umu Suna. hadday tahay markii kugu horeysay oo muuqaalkayga kusoo gaaro, fadlan kusoo beer kana mid noqo asxaabtayda oo gambaleelka fursad u noqotay daawadaha ugu horeeya oo mar walbo muuqaaladayda daawado. asxaabta hore noola joogtay iyo kuwa gadaal nooga soo beera dhammaantiin ilaahay waxaan kaga baryayaa baraare iyo barwaaqo inaad igu noolaataan meel walba oo daafaha caalamka aad ka joogtaan. asmartiyanina janalku waa janalkiina, waa mar kale iyo muuqaal kaloo cusub iyo weliba qiso aad iyo aad u xanuun badan oo waxaan ku dhahay qalbigayga aada u gabtay oo weliba ku dhacday 2 gabdhood oo Soomaaliyeed, midna ay dhimatay midna ay xanuunsan tahay. ilaahay caafimaad taama ha siiyo. waxaan aad iyo aad inka codsanayaa qof kasto oo dhiig islaamnimo leh, wiil gabar waayeel, intaba waxaan ka codsanayaa inaa muuqaalkan si fiican aad dhegtiina aad u furtiin, aad dhegeysataan, in aad fiidiyowgan iga gaarsiisaan. waa codsi waalidiinta Soomaaliyeed, khaasatan aabbayaasha. hooyooyinkana way ku jiraan, laakiin aabbayaasha Soomaaliyeed in aad iga gaarsiisaan ayaan inka codsan lahay. fiidiyowgan waxaan marka koowaad kala hadlayaa aabbayaasha Soomaaliyeed. aabbayaasha Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin 2 arrin. midda koowaad waxaa waaye in ay ku mashquulsan yihiin fadhi ku dirir oo ilmahooda ay ka mashquulsan yihiin, aysan jirin waalid cunugiisa la socdo, indhaha ku fiirinayo, cunugiisa keergaraynayo, xaaladiisa waxbarasho, jadwalkiisa nololeed, qaabka uu wax u wado lalama socdo. haddana waxaa loo sii dhiibay taleefan, asagana wuxuu aadayaa fadhi ku dirir. weliba khaasatan gabdhaha waxay u baahan yihiin in ay helaan talo aabe oo aad iyo aad u fiican. waxaan aaminsanahay maantay haddii uunan aabahay aniguu jiro 14 jir ama 15 jir meelahaas ahaa markuu aabahay uu isiinayo talooyin aad iyo aad muhiim u ah oo maantana mar badan aan arko gabdho badan oo ku dhacaan. waxaa isdhahaa hadduu aabaha uunan sidaa kuula tali lahayn, macquul ay ahaa lahayd sidaasoo kale inay kugu dhacdo. waana run, sababtoo waalidiinteena inta badan waxay ka fakeraan siday cunto noo sii lahaayeen iyo waxbarasho, laakiin kama fakeraan shayaadiinta gabar markaad tahay banaanka kuu taagan, kama fakeraan dadka kugu hareereysan oo nimanka ah, ina adeer ha ahaado, adeer labaad ha ahaado, abti ha ahaado, waxaasoo dhan cid ka fikirta ma lahan. sababtoo gabadha markay soo baxayso shaydaan walbo ayaa indhaha kusoo taagayo. aabbayaasha Soomaaliyeed kuwaas waxay ku mashquulsan yihiin fadhi ku dirir, kuwa kalena waxay ku mashquulsan yihiin naaga badsi iyo ilmo badsi. ma ogtahay aabe in ilmaha aad badinaysid amase ilmaha aad dhalaysid ay jiraan dad ku raadiya dayaxa oo ilaahay ilmo uuna siinin, ay ka taagan tahay ilaahu hal cunug ma isiisid, adigana sidii dooradii inta u daadisid oo gabar walba guursatid oo ku furtid amase adoo qabtid mid kale ka daba keentid aadan ilmahaadii ka warqabinin. ilaahay maalinta aakhiro wuu ku xisaabi doonaa. ilmahan
ha u malaynin ciyaar, waa ammaano. Ilaahayna qof walbo oo muslim ah ammaanada loo dhiibay waa laga rabaa. Hadaa moodo ilmaha inay ciyaar ku dhashay, sida ragga Soomaaliyeed inta badan ay aaminsan yihiin anaga ilmo ma dhalno, naagaha dhalaan, ma fahante. Marka naagaha dhalaan qiyaamo ma inka saareyso. Ilaahay mas-uuliyadda adinku idin saare, waana la idin weydii doonaa. Waxaan aad iyo aad ula ooyay labadan gabdhood, weliba gabadha dhimatay waa 17 jir. Waxaa aad usii xanuun badan in gabadhan yar ee u dhimatay cudurka AIDS-ka, ayada iyo walaasheed in ay xanuunsadeen oo isbitaal ay galeen. Kadibna aabahood markii loo sheegay muxuu ku jawaabay, waa ay fasahaadeen oo liido ayay macaasi ku sameeyaan. Aabahaas wuu dayacay labadiisa gabdhood. Labadan gabdhood hooyadood waa ay dhimatay. Waxaa laga yaabaa aabahan inuu xaas kale iska guursaday, amase gabdhahan daryeel fiican ayna xaaskaas ka helin hadii la joogtay, ama qaraabo kale ay la joogeen. Gabdhahana markay soo kacayaan, indhaha shayaadiinta dhan ayaa kusoo wada jeedo. Waalidkeena Soomaaliyeed taas ma wada oga, sababtoo ah waxay ku mashquulsan yihiin inay cunto ku siiyaan iyo inay ku dhahaan soco iskuulka aad, dugsiga aad, maxaa usoo daahday, maxaasan u sameysay oo keliya. Gabadhii haddaadan la sheekeysanaynin, saaxiib la ahaynin, aadan la fadhiisanin, wax u sheeginin, waaninin, shayaadiinta banaanka waxyaabahay ku sirtaan aadan u sheegin, wax walbo suurtagal u ah. Xataa dariska gabadhaada yar ee soo kacaysa kama baxsanayso. Taasna waxaa na tusinayso gabdhihii yaryaraa ee gabadha ugu dambeysay xamar inta la kufsaday, la jarjaray jirkeedii. Gabadhii kaleeto Caaisho ayadana gobolada ka dhaceysay oo niman abtiyaal ay u yihiin la dhahay, cid deynaysa malahan. Shayaadiinta dhan way soo wada fiirinayaan. Waalidka Soomaaliyeedna taas ihtimaam ma u siinayaan oo maba fiirinayaan, ma ka warqabaan. Aabayaasha Soomaaliyeed waqtigan lagu jiro ma ahan waqtigii hore. Ilmihii social mediaha aad iyo aad fasahaadkiisa u badan yahay, haddana shayaadiinta aad ay u badatay. Saaxiibada xunxun waxaa waaye durdur. Xataa haddii gabadhaada miskiinad tahay, banaanka loo bixinaa, waa la fasahaadinayaa. Laakiin haddii adiga aad tahay waalid feeljigan, waalid ilmihiisa ka warhaayo, waalid ilmihiisa la taliyo, waalid ilmihiisa daba socdo, indhihiisa dhaadheer yihiin, insha Allah waxaa laga yaabaa ilmahaaga inuu Ilaahay kuu badbaadiyo. Laakiin haddii aad iska ihtimaam aadan siinin oo iska dhayeelsatid oo fadhi ku dirirkaada uu kuu dheeryahay, shaqada markaa kasoo baxdid, jimcaha oo joogtid dhaheeda maalinteeda nasiinada waaye, ilmo dhan aada fiirinin, aad iska sii socotid, waxay barteen iyo waxay qabteen aadan kala ogeyn, iskuulka aad dhahdid qaarkood aysan aadinin. Waxbarasho waxaa isla dhigi jirnay dad waalidkooda waxbarashada aadi inta dhahaan aan waxbarashada aadinin, ee markiina la soo daayo gaari inta kasoo degaan annagana soo raaci jiray. Dadkaas waxaa dhalay